nabad iyo nolol alla madaxda nabad iyo nolol abalkay naga mutan bulshooy magudi kareen ducaanu marinaynaa maamuus horseedii gole wasiiro mudaniyo xukuumad milgaladhiso ra'iisul wasaare khayro dadku mahadsan ku qire khayre masanadhiso dadku mahadsan ku qire ismaqal iyo daawasho habboon saaxiibayaal halkani waa janalka nabad iyo nolol kusoo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu doorka roon caaqilka ayaan ahay taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha May 2020 qodobada aan idiin soo gudbin doono haddii Allah wada la ogolaado waxaa ka mid noqonaya qof looga shakisnaa coronavirus oo Soomaaliland ku geeriyooday waxaana kiiskan uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee COVID-19 Soomaaliland gudaheeda ugu geeriyooda dowladda federaalka Soomaaliya oo wada dadaaladii ugu xoogana oo lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 iyo maamulka gobolka Banaadir oo bilaabay in suuqyada magaalada Muqdisho ay ka buufiyaan coronavirus Turkiga iyo Imaaraadka Carabta waxa uu ku eedeynayaa inay taageeraan xarakada al-shabaab ka dagaalanta qaybo ka mid ah Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maradu ka dhacday iyo xaaladiisa oo maraysa meel xasaasi ah dowladda federaalka Soomaaliya oo wada gurmadadii ugu dambeeyay ee lagu gurmanayo dadka ku dhibaataysan magaalada Qardho ee gobolka Karkaar wakiilkii hore qaramada midoobay ee Soomaaliya oo geeriyooday qodobadaasi ayaan idiin soo gudbinayaa saaxiibayaal iyo qodobo kale fadlan channelkan subscribe dha calaamada kambalelka furta muuqaalkan saaxiibayaal sii share gareeya aynu ku bilownay saaxiibayaal qof looga shakisan yahay inuu dilay caabuqa COVID-19 oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland waxaana shakhsigan uu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee COVID-19 uu ku dilo deegaana ka tirsan maamulka Somaliland magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu soo waramayaa in lagu aasay qof looga shakisan yahay cudurka COVID-19 kaasi oo maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay deegaanada maamulka Somaliland balse markii dambe geeriyooday wararka la helaya waxay sheegayaan in qofkaasi uu ahaa dhalinyaro uuna ku jiray da'da 20 waxaana maalmihii la soo dhaafay soo wajahay xanuun aad u daran kaasi oo la sheegayo in uu yahay caabuqa COVID-19 ugu dambeyntiina xanuunkaasi waa uu geeriyooday maamulka Somaliland waxay aaminsan yihiin in shakhsigan uu yahay qofkii ugu horreeyay ee coronavirus uu ku dilo deegaanada maamulka Somaliland waxaana maalmihii la soo dhaafay deegaanadaasi laga diiwaan gelinayay kiisas cusub oo COVID-19 ahi marxuumkan iyo aaskiisa waxaa ka qayb galay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamulka Somaliland kuwaasoo loo diyaariyay in ay ka qayb galaan iyo qaar ka mid ah shakhsiyaad kooban oo eheladiisa ka mid ah kuwaasoo ku sugan magaalada Buurama baaritaano loo diray shakhsigana ayaan weli la helin jawaabtiisa rasmiga ah balse waxaa lala xiriirinayaa inuu dilay caabuqa coronavirus dhimashada qof looga shakisnaa cudurka coronavirus ee magaalada Buurama waxay ku soo aadaysaa xilli qofkii ugu horreeyay cudurka coronavirus oo u geeriyooday deegaanada maamulka dowlad goboleedka Somaliland dowladda federaalka Soomaaliya waxay wadaa qaabkii loo xakameyn lahaa fiditaanka caabuqa coronavirus kaasi oo saameyn baan ku haya wadamada caalamka maamulka gobolka Banaadirna waxa uu buufiyay suuqa bakaraha ee magaalada Muqdisho waaxda caafimaadka gurmadka degdega ahi ee dowladda hoose xamariya waxay xalay howlo buufina ka furiyeen
suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho si looga hortago faafidda cudurka covid-19 kaasi oo dhibaato baan ku haya dadka ku nool magaalada muqdisho. ciidanka gurmadka degdega ah ee dowladda hoose ayaa waxay ka qayb qaateen howlahani lagu buufinayo caabuqan covid-19 waxaana dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dadaaleysaa qaabkii loo xakameyn lahaa cudurkan uu ku fido suuqyada magaalada muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka maamulka imaarida gobolka Banaadir Axmed Xasan Imaan iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo Cumar Cali Cabdi ayaa waxay horkacayeen howlahani lagu buufinayo caabuqa covid-19 kaasi oo ay wada waaxda caafimaadka ee gurmadka degdega dowladda hoose xamar waxaana lagula tacaalayaa amaba looga hortagayaa faafidaanka coronavirus. Axmed Xasan Imaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka imaarida ayaa waxa uu sheegay inay horey loo soo buufiyay goobo muhiim ahi oo shacabku aad ay u isticmaalaan iyo goobo ganacsi oo ku badan yihiin shacabku maalmihii. suuqa bakaaraha ayaa ugu weyn meelaha la buufiyay waxaana xalay ciidamadu si weyn ay u buufiyeen suuqaasi. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay wadaa dadaalo xoogan oo lagu xakameynayo fiditaanka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaato baan ku haya wadamada caalamka. Soomaalina waxay ka mid tahay wadamada uu xanuunkani soo gaaray. Turkigan Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku eedeynaya inuu taageero dagaalyahanada hubeysan ee xarakada Al-Shabaab ka dagaalanta qaybo ka mid ah Soomaaliya. war ka soo baxay dowladda dalka Turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay taageerto xarakada Al-Shabaab kuwaas oo dagaal xooggan kula jira dowladda federaalka Soomaaliya. warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ayaa waxay sheegtay in Imaaraadka Carabta ay si weyn u taageeraan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka dagaalanta qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. xoojinta ka dagaalanta dalka Yemen iyo fallaagada ka dagaalanta wadamada Suuriya, Liibiya iyo wadamo badan oo ku yaala Geeska Afrika. sidoo kale Turkiga ayaa waxa uu sheegay in taageerada dowladda Imaaraadka Carabta ee kooxdani loogu yeero argagixisada dunida ay og tahay arrintaasi. Turkiga ma shaacin sida Imaaraadka Carabta ay u taageerto ama taageerada u siiso Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda wadamada caalamku aqoonsan yahay. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay ka mid tahay dowladaha looga shakisan yahay inay taageeraan kooxaha argagixisada ay ka dagaalanta qaybo ka mid ah wadamada caalamka. war ka soo baxay dowladda dalka Turkiga ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ay dowladda shisheeye ku eedeysay qaraxii khasaaraha badan geystay 28 bishii December ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. dowladda federaalka Soomaaliya waxay si laba jabaaraysaa gurmadida ay gaarsiinayso magaalada Qardho taasi oo fatahaado xoogan ay u geysteen roob xoogan oo ka da'ay magaaladaasi. dowladda federaalka Soomaaliya waxay lacag gaaraysa 1 milyan oo doolarka Mareykanka ugu deeqday dadka ku dhibaataysan magaalada Qardho. dadkan ayaa waxaa saameyn xoogan gaarsiiyay roobab daad xoogan watay kuwaasoo ka da'ay magaalada Qardho waxaana dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay dadkani garab istaagi doonaan. gurmadkii ugu horreeyay ayaa waxa uu gaaray magaalada Qardho waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday lacag gaaraysa 1 milyan oo doolarka Mareykanka ahi. geesta kale waxaa jira xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ayana deeq lacag ah u gaarsiiyay dadka reer Qardho kuwaasoo dhibaato xoogan ay ka soo gaartay roob xoogan oo halkaasi ku da'ay. dowladda federaalka Soomaaliya waxay shacabkeeda ugu baaqday inay isu gurmadaan
waxaana dowladdu sheegtay inay sii laba jibaari doonto dadaalada xoogan ee u gurmanayso dadka ku dhibaataysan magaalada Qardho. maamulka dowlad goboleedka Puntland ayaa geestiisa waxaa wadaa dadaaladii u xooganaa ee lagu samatay bixinayo dadkan dhibaatada xoogan ay soo gaartay kuwaasoo ku dhibaataysan magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. wakiilkii hore qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsanaa oo geeriyooday. madaxweynaha dalka Tanzania ayaa waxaa war-saxaafeed uu soo saaray maanta oo taariikhdu tahay 1 bisha May waxa uu ku xaqiijiyay inuu geeriyooday wasiirkii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalkaasi Augustina Mahinga. war-saxaafeedkan ayaa waxa ku sheegay in Augustina uu xanuun ku soo booday isla markaana maanta u geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi kaasi oo xaaladiisa lagula tacaalayay. Augustina ayaa mar waxa uu soo noqday wakiilkii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya intii u dhaxaysay Juun 2010 iyo Juun 2013 waxaana hadda uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalkaasi. war-saxaafeedkan ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi waxaa lagu xaqiijiyay geerida Augustino waxaana ka tacsiyeeyay madaxda ugu sareysa wadankaasi. guud ahaan saaxiibayaal warkii ka daawanayseen janalka Nabad iyo Nolol wanaga intaay isma dhaafno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.